bilood caado ma helin, maxaa sababay? Uurka. Haddaad iska weydid caado kuna fuulo barar, horaadyaduna ay ku daqnanayaan, calooshuna laga murjinayo, waxaad leedahay uur. Heerka hormoonada ayaa siyaadaya marka aad uuraysato, kana caawinaya ilmo-galeenka sii wadida habsamida dhinaciisa, kaasoo haddii kala samayn lahaa dhiig-daadin haddaadan uur lahayn. Dhiig-daadintaas timaadda markii heerka hormoonada isbeddelaan waa waxaan u naqaano dhiigga caadada. Marka waxaa lagama maarmaan ah inaad martid tijaabo hubinta inuu jiro uur. Dhalmo-days. Haddaadan helin caado muddo 11 ilaa 12 bilood, waxay kuu caddaynaysaa inaad tahay dhalmo-goys. Waxaad heli kartaa caado muddooyin aadan malaysanayn, taasoo waddo u ah dhalmo-days. Waxay u muuqataa haddaad iska weydo caado 3 bilood inaad u dhowaatay xilligii caado-goyska. Almiitada xad-dhaafka ah. Almiitada xad-dhaafka ah waxay kuu horseedi kartaa inaad iska weydo caado. Almiitada way u fiican tahay caafimaadkaaga, balse markaad ka badisid xadkeeda, waxay saameynaysaa isku dheelitirnaanshaha hormoonada dhacamada jirkaaga, taasoo carqaladaynaysa xilliga caadada. Xilliga aad filanaysid caadadaada way imanaysaa haddaad joojisid almiitada xad-dhaafka ah. Miisaan badan. Waxaa kaa istaagi karta caadada haddii xayrta jirkaaga ay 15% hooseyso ama ay zaid u badan tahay. Haddaad tahay haweeney ka qayb qaadata cayaaraha fudud oo looga baahan yahay inaad sameysid almiito badan, waxaa kugu imanaysa in hormoonada jirkaaga kala bataan, horseedaysana caado wareer. Waxyaabaha kale. Waxaa kaloo keeni kara caado wareerka qaadashada daawooyin xanuun kale sida cirbadaha chemotherapy, murugada ama walwalka, dhaawac xagga maskaxda ah, iyo waxyaabo kale.